بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يا أصحابتي يا خيارت عن جعلهاي جنرال كينان وانا وعي قلين كحيران سور دواد ولا إن شاء الرحمن ما انت هرتوا مالنتين إن شاء الله أنك هذا جرني موضوع كسابسن مقعو جنرال كينا حنبارسن هيئة وانا وعي قلين marka maanta insha Allah raxmaan waxaan rabaa inaan maaragtaa ka hadlo mowduuc ku saabsan iimaanka maaragtaa nusqaamidiisa iyo kordhidiisa mowduucaasi marka idin leeyahay waxaan rabaa inaan ka hadlane aniga kama wado waxaan ka hadlayaa maxay heetoole arintaasi ma jirta miya arintaasi maxay heetoole maxaa keeni karo maxaa la iska daweyn karaa aniga ma aragtaa marro mowduuca insha Allah raxmaan inaan sidaas u dhigo maxaa yeelay aniga ma ihi idin sheegay korno waa idin sheegay hadana kugu celinaya anigu aqoontaas malihi aan kaga hadli karo maxay heetoole cilmiga noocaasa ama arinta noocaasa malihi ani aqoonteeda marka saa la ajligeed aniga iguma haboono in arintaas ka hadlo ilaahayna waa tuu yiri maxay heetoole wax aydan cilmi u lahayn hadhex istaagina marka ani arintaas cilmi u malihi waxna kama dhihi karo laakiin waxaan uga hadlayaa mowduucan waxay tahay oo aan rabo inaan uga hadlo walaalahana aan rabo inaan ku baraarujiyo waxay tahay kaliya arin aniga qaas iyo taasoo ah dareemid aan aniga dareemay arintan ku saabsan nusqaamida iyo kordhida iimaanku qofka ku jiro uu kordho marna uu nusqaamo arintaas oo ah arin ma aragta anaga hadaan nahay dadka sunniyiinta ee qaasatan aan rumeysanahay way jiraan dad fara badan oo anaga ma aragta firqooyin kale ayagana muslimiin sheeganayaan oo sida culimadu noo sheegtay diidan arintaas laakiin anaga maadaama aan nahay dad sunniyiin arintaas waa rumeysanahay Soomahan marka arintaas aan waxaan uga hadlay wax kale ma ahan horta arintaas saasaan rabaa insha Allah raxmaan inaan uga hadlo insha Allah marka maxay heetoole waxyaabahan aan ka hadlayo walaalahay waan idinku baraarujinayane anigu waxaan ula jeedaa kaliya waxay tahay walaalahaaga aad jeceshahay la wadaag wax aad maanta ma aragtaa isdhihi kartid waxbay ka bedeli kartaa marka maxay heetoole taasna de qof walbo muslim oo anaga naga mid ah sideeda banaanba horta diinta waajiba ka saaran inuu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar inuu la imaadane waajiba naga saaran marka maxay heetoole taasna ma ka reebiso xitaa hadii aadan taas cilmi badan aadan lahayn ma ku diidayso inaad arintaas sameeysid oo walaalaha wanaagna fartid xumaana ka celisid waa sida hadda wadno waani wacyi gelin oo kale barnaamijkan aniga hadda aan wado ima diidayso inaan anigu aqoon badan lahayn Soomahan laakiin maxaa sababta ma aragtaa nagu diidayna waxay tahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markii uu dacwada bilaabayay ila laha kaagan isduuduubaya suuratu mudaththir ay ku soo dagaysay laha kaco dig Nabi sallallahu alayhi wasallam saa ogtiinba markaas quraan fara badan ba kuma soo dagin maxay heetoole marka hadana waxa la yiri kaco isduuduubina dig waa sax nabiga waxii baa ku socday sallallahu alayhi wasallam laakiin culimadu waxay dhahan marka nabiga saas la lahaa sallallahu alayhi wasallam quraan badan buu kuma soo dagin saxaabo fara badan oo ka qayb qaadatay ma aragtaa dadka ugu horeeyay diinta soo gal ahaa oo ma aragtaa sababna u ahaa saxaabo waaweyn maanta oo aan qaano inay ma aragtaa diinta soo galaan sida Uthman bin Affan saxaabo la mid markay arintaas sameynayeen ma maxay heetoole ma lahayn aqoon fara badan cilmi fara badan maysan aqoonin marka diintan anagoo dhan horta waajib aan naga saaran arintaasna aqoonnane xaq ay nagu tahay mid kale intood ha ilaawin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri balliquni walaw aaya markii lagu yiri adiga waxa aaminsanaata ama aad og tahaybo inaad aayadii ka badan bataqaanid marka anigu waxaan isleeyahay arintaasiti iimadiidis igama reebayso cilmi yarideeda marka insha Allah raxmaan horta mowduuciga aan guda galo intaas waxay iga ahayd ma aragtaa hordhac inta sanad ugu gudubno insha Allah mowduuc hada aan guda galo horta iimaanku waa kordha waa nusqaama taas la isku haysto Soomahan marka aniga maxaa marka arintaas ku dareemay horta aniga arintaas waxaan ku dareemay hadaan idin la wadaago xaqiiqadu waxay tahay oo aanan isleeyahay qaar fara badan oo idin kamid ah inay arintaasi u maleynayaan wax ma aragtaan iska iri laakiin wallahi idinka idin dhaaranayay arintaasi
iskama aanan dhihin ee waa arin xaqiiqo ah oo sida aan idinku sheegaya bidabta u dhacday marka arinteeda aan guud galo horta hadda horta qurbahan joognaa aan jooga anigu marka intaan qurbaha imaanin ka hor horta arintan ee ahayd arintan wax kale ma ahane horta maasha Allah tabaaraka raxmaan iimaankan ilaaha bixiyo ilaahana maaragtay inuu kordhayo inuu nusqaamo ilaahay gacantiisa qulubta bini'aadam ku jirta ilaahay baana suu rabo u gadgadiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigeena maaragtay iimaan ku sugo iimaankan inuu kordhiyo ilaahay weydiisanaynaa insha Allah raxmaan dhamaanteen marka wadankii markaad joogtay wax badan ayuu wadankii wadamadan qurbaha marka la imaado kaga fiican yahay dhamaanteena taas waan ka dharagsanaa inaan ka hadlo ma baahno insha Allah hadii ay qabatana waan ka soo hadli doonaa hadii Ilaahay ma yidhin marka maxay toole wadankii markaan joognay xijaabadan qaadanay intaan way ka maaragtay xijaabo ma sha Allah intaan ka fiican ahaayeen dadka aan ku dhex jirnay cibaadadka aan sameeyno inta ma sha Allah tabaaraka raxmaan way ka badnaayeen maxaa yeelay waxaad xaadireysay mar walba muxaadaraad fara badan diintii baad baranaysay dugsiga meel walba kugu yaala ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxaan ku leeyahay wax badan fursado fara badan oo maanta aan la heli karin meesha aan la heli karin oo wadankeenu lahaa dhammaan dadka arkaysa wada muslimiin ay ahaayeen Allahumma musta'aan maxay toole 24 saac ama 5 waqti oo noloshaada kamid ah maalinta habeenkii waxaad maqlayso xitaa oo dhagaa ku soo dhacay aadaanka salaadaha ahayd ma sha Allah tabaaraka raxmaan wax badan aan horta ma aragtaa iimaankaaga siyaadin karo oo wadankeeni lahaa صح marka aniga marka wadanka joogay aan raba marka idin wadaaga sheekadiisa ahaan jirtay iimaankayga soo ahaa insha Allah horta waxa dhici jirtay horta ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilaahayna dadka ku sugay horta waa xijaaban jiray ma sha Allah hadeer baa xijaabta laakiin xijaabkayga maanta intuu yahay aad u maaragtaa uga baaxad weynaa oo ma sha Allah de markaasii waxa waaye lagama hadli karaan ku dhahay ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxa ahaa gabar maaragtaa waxaan dhihi karaa anigu markaas taqwo iyo maaragtaa iyo cabsi fara badan aan haysan jiray marka waxaa dhici jirtay hadii bal u fiirsada yaa dhageysta tusaalahan aan siinay waxa dhici jirtay horta waa ognahay gabadhu maaragtaa xijaabkeedu waxa diintuna amartay inay gabadhu ka banaanaan karto ama maaragtaa la ogol yahay inay banaanaato waa labada kaf iyo wajiga waxay culimadu ku sheegaan labada calacalood iyo wajiga Soomahan taas dhamaantiin waa ognahay marka hadii ilaahay baan ku dhaaranayaa been ma sheegaye wallahi waxa dhici jirtay hadii jirkayga waa markaan dhulka joogay hadii jirkayga gacanteeda calaacasheeda wax yar haduu ma aragtaa maradaydu ay hoos uga dhacdo oo markaas ama tusaale kale gaari BL aan saaranahay ama si kala adi tusaale marka soo qaabana gaari BL aan saaranahay gaaridan basas dadka isla raacaan gaaridan saarno kale ama soo fuulay ama aan saarno kale hadii maradaydu wax yar ma aragtaa ay hoos uga dhaco xijaabkayga cambuurkayga hoos uga dhaco ma aragtaa gacanteeda wallahi waxaan dareemi jiray meeshaas inuu iga maray dab sida dab holac oo kale waa haduu nin ajnabi ma aragtaa tusaale kale dhinaciga uu joogo arko waxaan dareemi jiray in meeshaas inay dab sida meel ma aragtaa dab camera oo kale soo ku dhiimeys oo inta ku dhaad ma aragtaa soo kuleel hor ka dareemaysta biyo kullo kale hadii lagu shubo kale meel am kaaga daataan oo kale wallahi sidaasan dareemi jiray inaan been idin sheegeen taas maxaa u sabab ah taas waxa u sabab ahayd iimaanka markaas qalbigayga ku jiray hadeerna miyaa iska daaya in hubku martay wax lamid ah wallahi waxay ila tahay wax iska yar basiida oo adigu uma talagelin iyo curdaaro fara badan aan nafteeda u sameeyna taasna maxaa sabab waxa sabab waxay tahay waa iimaankaygi oo nusqaamay halkaan markaa imaad dhulkeena markaan joogo tusaale kale waxa dhici jirtay hadii aan guriga ka baxo aanu adkaarta guriga looga baxay akhrinin wallahi hadaan si kasta u degdegsanay hadaan jidka kale barkiisa maray waa soo laaban jir xaafadan ku soo laaban jir ilaa aan adkaartaas akhriyo markaas aan bixi jir waxa kale dhici jirtay mid bixi jirin marna nolosheeda ima soo marin aanu weysa la'aan baxan nolosheedaan yiraah weysa la'aan inta xasuusteeda la egtahay oo anoo de wajirta mar aadan weysayso waajib kugu ahayn sida marka daahirka ee oo kale laakiin waxaan sheegayaa markaan daahirka nahay aan sheegayaa ima soo marin inaan weysa la'aan albaabka gurigeyga aan ka baxo haddana maxay idinkaga hadlaaba de
wixii dhamaan cagsi isku bedeleen iimaankii waxaan ku leeyahay dhulku tagay waxyaabo badan waxa dhacday inaad iska fududeysatid inaad adiga cudur daaro iska sameysatid inaad qiil fara badan oo aan jirin bade iska baxsato istiraad kama gaari kartid sibad u degdegsan tahay maxay toole waqti baa ku dhaafay wax baad isku sababeynaysaa bilaawaysa iska baxaysaa waxaan ku dhahay adkaartii jidka aad maraysa laga yaabaa inaad soo xasuusatid oo markaasna istiraahad iska akhri halkan ku akhrisa waxba dhiban malahan waa soo ilaawday had xaafada kuma laaban kareysin halkaas intaas waxa keenaysa waxay tahay horta iimaankaaga daciifay iyo meeshan aan ku noolnahooba iska ahba ma aragtaa meel ilaahay amarkiis ma aragtaa waqtigiina baraka beelay si kalena dee iska oo dhul gaalaad Soomahan dhulka nagi ma ahan anagina bil xaqiiqo waxay tahay iimaankeenu daciif noqday horta arrintaas sabab waxa kaloo aad ma aragtaa aan ula yaabo waxay tahay wallahi been idiima sheegay dhulkeena markaan joogay waxa dhici jirtay salaadaha kale intood ma dhici jirin sakin waxaan ku daqiiqadan salaada ka daaho ahada u nabciisan jiray waxa kurba weyn ilaahan jirtay maanta oo culays dusha liga saarayaan jirtay haddana waxa iska dhacaysa marka qaar 5 daqiiqo 3 daqiiqo 4 daqiiqo hadaan doono marar baaba laga yaabo inkastoo inay hurdiyada tagtay ee dhacdo 10 daqiiqo inay dhaafto marka qaar hurdo ila tagto karanto laakiin hadda waxa dhacdo in 5 daqiiqo 6 daqiiqo meelaas salaad ay dhaafto oo iska mashquulsan howl iska wata ma ahan qafladan ku jirno aan ogahay hadda taasna waxa keenayso iimaankaygu hoos u dhaca keenayso awalna laga yaabi jirin war xataa wadanka imaada xataa cusbaa xataa waxa dhici jirtay ma aragtaa haddii aan buuxaan banaanada aado kalentood oo ma aragtaa salaadan waqtigeeda la soo galo aad baan u kurboon jiray haduu qof ila socdo maanta waxaan dhigi jiray salaadii la gaaray maxaan sameeynaa heer dadka ila socday dhahan qaradiga salaadan ma adiga kaliya baa lagu leeyahay salaadan baad sheegtay salaada adiga kaliya lagu ma anaga dhan lagu leeyahay markaan meel ku haboon tagnaan tukan doona halkaas wuxuu ku tusay wallahi waxay taa iimaankii ma aragtaa markaas aan haysan jiray haddana waxaan ku dhahay marka waa kaasaadii xaaladeed ma laga sheekeyn karaa haddana waa kana waxaan ku dhahay wax walba iska saashanayna marka waa kaasaay walaalahay waxaan jeclaa waxay tahay ma aragtaa inaan arintaas idin la wadaago arintaasna maadaama ay tahay aniga ugu dhacday arnigana aan dareemay waxa marka lagaaga sheekeeyay waxa marka adiga ma aragtaas oo si xaqiiqi ah u dareentid na way kala dareen iyo aragti duwan yihiin aragtida shalay ka qabtay aragti ka duwan qaadanaysa ma fahantaad marka hadii insha Allah Rahmaan waxay la tahay Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa horta inuu ma aragtaa iimaankeena noo kordhiyo annagana waxa ila gudboon ma aragtaa inaan sameeyno wax walba ma aragtaa iimaankeena aan ku kordhisan karno sida inaan diinta iyo muxaadaraadka aan dhageysano maxay heetoole waxyaabo fara badan sida maxay heetoole culimadu ay noo sheegtay waxyaabo badan oo iimaankeena kordhin karo inaan quraanka aqrino kalantood inaan shaydaan aad ula dirno kalantood oo ma aragtaa nafta inay salaadaha waqtigeeda tukato aan ku qasabno kalantood marka insha Allah Rahmaan waxyaabo fara badan waxa jira iimaanka noo kordhin karo oo ma aragtaa ducada kala kamid ah inaan ma aragtaa Ilaahay mar walba barino oo Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala diinik iyo waxa ducooyin fara badan adigu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka insha Allah Rahmaan horta Ilaahay hana sugo aniga idinka Ilaahay hana sugo Ilaahayna hana xifdi Ilaahayna diintiisa nagu sugo Ilaahayna iimaanka noo kordhiyo iimaanka ma aragtaa Ilaahay baa bixiyo Ilaahay baa dad baqayb Ilaahay baa siiyay wax anaga aan keensan karna ma ahan wax dadaalkeena kaliya ku yimid ma ahan wax Ilaahayna la jeclaado waa Ilaahayna mar walba uga mahad celinayna insha Allah Rahmaan mawduucigeena waxaan rabaa inaan intaas ku soo gabagabeeyo إن شاء الله وحي أن صحيني هذا أنا ما أركت إلهي حقي سك أهذن وحي أن قلديني إن شاء الله أنا في شيطان حق وذاك أهذن إذن كانوا حايدن كرجينا إلى إذن كيس ما أركت أرنتي دانيتي دقيسك الدقيستين إنه إلهي إذنكو ما أركت وحن إن تكفى إيدان إلهي ما أركت إذنكو أنفع إن شاء الرحمن marka waxaan jeclaa mawduucigeena intaas ku soo gabagabeeyo waxaan idin codsanayaa waxay tahay hadaad hore ila joogtayne fadlan ii share garay ma aragtaa fiidiyowgeegan si aan u helo dad fara badan oo igu xiran hadii aad igu cusub tahay waxaan ka rajeynayaa waxay tahay ama ka codsanayo inaad channelka subscribe iyo dhahdid insha Allah Rahmaan fiidiyowga xigeentan ku kulmeen waxa idin kaga tagayaa waxay tahay salaanta salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh